jaanis isii baby lagama yaabo insha Allah waxaan ku balan qaadayaa sida aan shalay garabkaaga u cidleeyay inaan abaalgudkaaga dhigo inaan garabkaaga taagnaado ani dhankeyga laakiin su'aashaan aan rabay inaan ka jawaabo waxay tahay tii ilaahay ma sheegin laakiin teeda maya waxaan ahay nin reerkiisa inuu dhaqdo rabo maanta nin macsi u socda ma ihi waxaan ahay nin reerkiisa inuu soo ceshto rabo nin noloshiisa inuu maaragtay ka adkaada raba ahay because waxaa ku sii raacinaa sababta shalay qof maanta aa wada nooleen haddaa kala tagnay ama maxaa la danihiisa oo raacday sabab igu soo noqdo albaabkaas uu xiran yahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامه ولا لها خالقة مال بعد الدنيا ده في ذيك جوتي وحان إذن ليها وقت إيوايه ها إذن وعناده سيدو كلنته إن أدي بعدين سلامه الحمد لله لا إنسان بدأ عليه سيدو كلنته مقال كمركوغور يدو يا سبسكرايب لايك شير كومنت كا بينو سارة نهانتي أدي بدو ما سنتين سيدو قرط بدين قاعد مرو بدو قرب تاجنتين سو كلانتي أيام وحواي فيوسكينا رانتي أدبو لايكتين إي كومنتين وقرب بدين أيام عن ضعيف بينجين سو كلانتي رانتي أد بندين كجمع هاد علينا يا إن سيد قرب بدين إنك أدرس بكت جريسين سو كلانتي ما أنت وحى رواع إن أني عن كهد الله أفكي باجو أنت سوسنون أنت سنة إلهي نقرنا عوض نولاني الحمد لله عدك حلمي جرتو حتى ما نو لس إيجنا محاسوقي زي حتى هاي waxa igu dhacay wallahi single billahi waa kala tagnay ani aad ku kan xalaala ku jiray aadi aadan ugu naxay wallahi aadi aada ugu naxay ayadoo ay iga ahayn in aan fiis ku raadsado ayadoo iga ahayn in aan mar ahaantaas muuqaalkaaga horaha u socday uu yahay alxamdulillah wuxuu ilaahay keenay tool wax jeel u shukriya anti muuqaalkan balna u daawado بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأرين أن كنحي أن كأرجع حي ومر هانتس فكر آت وده أني أنكره والله وبالله والله قبل أن رنانتي وحي كمتحي لما أنها ومر هانتس في السوشيال ميديا وأيجا عن داونجري أي كمان تاعي كو مدة حتى أيها وحيتاعي مركي أي تري أنيجا يا أبوكر وان كلا تقني رانترت وان نحي قلبي آتي جبري فكري آتي وديران كلي والله مركا مقال كان أني يستي إن أني أنكح الله حاسكي يقرب فلسي waxay tiri axmedow wax kale inta ka hadalay tiri arin furin qosayse iyo reer dudumay wax qosayaha ka hadlanay tiri wallahi billahi run ahaantii lamaanaha reer social media oo boqolkiiba boqol oo noloshooda ka dhigay public waxa soo wajahday wixii ka sii horeeyay wixii ka sii dambeeyay haday tahay arin aad u naxdin waa waxyaalo laga argagaxo waa waxaana lagu kala faataxaysanay waa wax qof walba adiga naftirkaaga ay daawanaysid qof walbana single ka moral anigana single mother single father marka saasa ku kala dhamaysanay alxamdulillah inta la soo noolay ma ku xumi إلهي لو قبضت قروح بدن إجسي أنت سان ما أنت أنا مهمة دي مركز حابتي إذا أنا كمحمي الحمد لله إلهي ما حد إسكالي وحي إلا أنا خطي شيء وأنا لك شيء معبو وإسكالي أنت هذا الكير أنت مركز حابتي إذا نصاصي نقطي أرنتي الحمد لله قفل بنرشي سفير سنة قفل بدنيه سأوقاره because دت كلا تجي وجهري أنا جمانيه أرتين ولا كلا تجي قداشين ولا كلا تجي دونا
kala tagitaan ma idin baliminooy laakiin nolosha absaas iskay qof oo inta wada noolaanaysin qofkan ilaahay xaggiisa ku qoran tahay maalintay soo dhamaato sabab walba ha imaado si wax xumaan lagu kala tago ama wanaag lagu kala tago waa kii la kala tagaa because ciishadii soo dhamaatay soo hadda ciishadeena soo dhamaatay marka asxaabteeda siday ahaataba alxamdulillah waa kaas noloshana qof walba sii waa ma fahanteen marka waa kaas dadka waxaa arkay comment la lamaaniyo qurux badnaay dadkiisaan maalmaan ma la arko intay ka baxeen intay qaar waxay dhaayaan kaamirada asaa ahaayo asaa u duubaya qaar waxay dhaayaan oo la jooga dhigi codkiisa maqluuna qaar basi ay dhaayaan ma fahanteen marka nolosha social media wax private ee ma noqoto because hadda aaminstid one day aad qofka ka hadashid waa ka hadlaysaa le abaayo waxaan horta ku leeyahay run ahaantii horta wax social media arrintan oo kaleento oo loo soo fariisto misena laga hadlo misena lagu farxo horta ma aada sheegin ku inkastoo wanaagiina aada noo soo dhigi jirteen inkastoo wax walba oo wanaagiina ku salaysan ama mar walba iyo farxadiina iyo falaawarkiina iyo hadiyadihiina idinkaa isgadoonsiin jirteen maanta run ahaantii ma aada soo bandhigin waxyaalo oo qalbiga qof walba oo qalbi leh oo insaan oo islaan oo idin jecel oo idinku xiran waxyaalo ay ku farxaan ma aada soo bandhigin alxamdulillah horta wax walba saa adi aad sheegto waaye qadar alla ay ka qoran yihiin wax walbani sidoo kale hadduu ilaahay qoro ama noloshaada public ha ahaato ama private ha ahaato run ahaantii wa ay dhacayaan hadduu ilaahay uu kugu talagalo balse midda meesha taala ayaa waxay tahay horta anaga ilaahay ayaana untay oo waxaan nahay bini aadin aad u daciif ah aabba walba wuxuu jecel yahay in awlaadiisa iyo asaga inay hal meel ay ku wada noolaadaan uu jecel yahay run ahaantii qof maanta jecel ma jirto inuu ku noolaado single father inuu ku noolaado qof maanta jecel ma jirto aabba walba markuu mar ahaantaas hadday ay ka tahay qofkan ama si uu jecel oo xiriir jecel oo ka dhexeeyo oo noloshoodani run ahaantii ay tahay mid qurux badan ay tahay hadday balaayo kaleeto aysa soo maagin iyo dhibaato kaleeto haddaysa meesha ay soo gelin qof ku faraxsan maanta furiinka maanta ma jirto adigoo xitaa qofka adiga aan nacban tahay misena qalad misena uu qofkii qalad kaa galay aada ku faraxsanayn inuu furiinkaas dhaco waayda furiinka sidiisa waa beydka ilaahay oo burburaayo oo kaleenta ayuu la mid yahay meel la isku furan aad iyo aad waa laga coodo bilaystaa walaashayda iyo walaalkayga shalay haddii idinka waxyaale easy aad isku furteen misena waxyaala idinka aad iska xalin kartaan aad isku furteen weli waxaan idin dhihi lahaa dalaaqiyihiina way idin dambeeyaan caruurtaas aad idinka iska dhasheen ilmo maanta mustaqbal leh waa ilmo maanta aabbahoodii hooyadood inay isku arkaan u baahan waa wallaahi aniga ka ahaan axmed ka ahaan xoogahoo ka hor sabriin waxaa ku dhahay walaalay miyaahe social media horta waxaa la dhawaaba haddaa iska dayna sidee u aragtaa waayda haddayba sidaan ay tahay social media shalay dad wanaag kugu bartay maanta hadday ay xumaantaada ay daawanayaan maxaa social media micnaa noloshana kasoo bandhigayna waxaa laga soo bandhigaa meesha miyaa wax mar ahaantaas aan kasoo hadalno meesha horta maba yaalaan inkasta ay ku qurux badan tahay nolol walbo private in ay ahaato balse
social media misana youtube wuxuu noo noqday aalad mar ahaantaas aniga aan ku shaqaysano kalaanka oo mar ahaantaas ama qaldan ama saxan ayaa waxaa u malaynaa in uu waxa noo sameynayo lacag uu noo sameynayo misana uu faa'iido uu noo yahay walow ay dadka kaleente wax ilaahay carag gelinayo ee ayaga ay maanta ay soo boosgareeyaan ayamaan dambo runtii qof walba mar ahaantaas wixii oo idinka aad ku kala tagteen horta wax idinka bareefad idin ee waaye maadaama idinkii aad kala tagteen adiga aad soo sheegtay horta ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay suukiin keeno waxaa kale ka baryaa ilaahay inuu aabahaas caruurtaad iska dhasheen inaad isku wada imaataan ilaahay idinkaga baryaa ilaahay suukiin soo celiyo hadda adigana maanta waxyaala adiga aad dhibsanaysid ay jiraan oo anaga aan ogeyn ay jiraan oo asaga kugu sameynaya ay jiraan horta ilaahay allah isku keena xaliyo midda meesha taala ayaa waxay tahay runtii waxyaalahan oo kaleentay horta wax lagu farxa ma ahan wax laga hadlana ma ahan aad iyo aad runtii aan ugu xumaaday sidoo kaleentay markii aan si u fiiriyey dhowr jeer aad iyo aad ugu fikiray in mar ahaantaas aan bataatanbo aniga iyo familkayga wax qoseeyo inaanba ka soo hadlinbo haddii la idaawanayo halay daawado haddaan la idaawanin yaa la idaawanin marmarka qaarkood sidaas ayaan ku fikiraa waloway saabiriin ee ay dhahdaan mar walba walaalo miyaaye waxaas ma jiraan shaydaankii na soo dhexgali lahaa ilaahay allah naga qabto ee axmedow waxaas ha u bixin ha isku borgoraaminin ha isniida ha iska gelinin hadda ugu dambeyso ani ad waxa iskugu dhacna ma jiraan dhaani wax adiga social media oo micnaha hadda adi oo u sameynaysid adi ma soo gelaysid adi awlaada mise nolosheena adi oo adi ma soo gelaysid mise soo gelayn adi awlaada maxay tahay horta walaalayaalow xaq baan isku leenahay dad waxaa tihiin maanta wanaagayga jecel oo islaamnimadii sidoo kale islaamnimada waa ku nahay walaalo ku nahay sidoo kaleente dad maanta waxaa jiraan oo qalbigaas iga jecel oo weligeyga aan is arkin aad jiraan oo sidoo kaleente oo qaarna ku haminaya ilaa hadda inaa is aragno qaarna aan is aragnin sidoo kaleente walaalayaalow horta qof walba wuxuu dhashtay haweenuu dhashtay qof walba haweenuu dhashtay codsiga maanta aniga aawata ayaa waxay tahay in ay social media aysa shaqadeeda hadda waxay noqotay shaqadeeda ay noqotay markii wax kaleenta laga soo tago oo shaqo kaleenta maanta oo laga shaqeeyo maanta ma jirto hana qata muxuma ilaahay waxaan ka baryaa soo kaleenta idinkana faatixada igu soo maraysiin inaan bataatanbo social media mustaqbalkayga from my life waxay kasii dhiman inaan social media ku aaqabaysanin oo meel aan iskaga gabagabeeyo oo iska laalaabo bataatanbo haddee sidaan baasha ay marayso no waayaday horta aniga niyadeeda ma ku jirto inta cimrigayga ka dhiman inaan saa u noolahay inaan social media aan kasoo dhex muuqdo marmarka qaarkood waxaa ku fikiraa markii xaaladaha qaar ani aan arko oo wixii iyo xumaantii oo dadkaas ama ay ku kala tageen misena qofka uu ka imaanayo misena qofkii laga keenayo markaa arko waxaa ku fikiraa bataatanba social media dhan axmedow iska meel iska dhig dhowr jeeraan ku fikiray idinkana waxaa iiga barisaan waxaa niyadda aan ka jeclahay oo ku haminayo inuu ilaahay isa qaro qof walba horta adduunkan saaran rajo buu leeyahay ilaahay rajadiisa allah usi qaro muraadkiisa ilaahay usi qaro anigana maanta waxaa ku haminayaa niyaddeyda aad iyo aad bay u weyn tahay hami aad iyo aad u fara badan baan leeyahay waxyaala fara badan aan ku haminayaa jirto waxyaala cariye igaga jiro ayaa jira maanta oo aniga aan rabo oo aanan haysanin walaalayaalow faatixadaas qaas ahaan marka salaada dukanaysiin iisoo niyeysta faatixada iisoo mara idinkan ilaahay ajri xasanaad allah idinka siiyo xasanaad ilaahay idinka siiyo idinkana meesha wax aad ka rabtaan iyo wax idinka aad niyeysanaysa inuu ilaahay idin saqaro xaaladaha aad ku jirtiin oo idinku adag inuu ilaahay idinka furfuro niyadiina waxaad ka jeceshihiin inuu ilaahay idin saqaro sidoo kale inta igu xiran oo maanta awlaad dhashay ilaahay awlaadiina laambaar idinkaga dhigo sidoo kale wax idinka aad jeceshihiin ilaahay idin saqaro wax walba aad haminaysiin ilaahay allah idin fududeeyo anna sidoo kale allaha ii fududeeyo wax walba aniga aan jeclahay
allaha ii fududay waxyaala aan tabanaya jirto oo maanta idiin soo bandhigi jirin ilaahay allaha ii saqaro sidoo kale walaalahayga quruxda badan insha allah waxaan ku kulmi doonaa tan iyo next muuqaal ayaan kulmi doonaa waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu